maanta waxaan doonayaa inaan idin faa'iideeyo sidee ardaygu hurdada iskaga ilaalin karaa marka uu imtixaanka diyaarinayo ama uu wax akhrisanayo. وأنا السلام الدمانتينا هدي الشانل كعصبتاي مقعي وبابي عبد الرحمن. اوكي. وأنا جو إندو إذا كمغنا وإذن صلابتي محايا لي رهانتي أرضي جامعة أيانهاي لين عنا أذيك أيام وقت إذن كسيي وأن شاء الله هاي حقيقي إن إذن فايدة علمية وإلهي إبراي مركا ما أنتو حندونيا إن إذن فايدة سيداي أرضيكو هرددا إسكاقا إلى لنكرا مركا وامتحانك ديارنايو أما وأخرسنايو. أوكي هذا موضوعنا أي نسكب بلابنا. هكو آخرين 10 كاغا سريتا أما جوجش هذا الدشيدة سببتو نفتا ذوي تقانا إني هالكن تاي ماشي راحة يعني إني تاي هالكن ماشي عد سيحان جرتي يا تكون في جرتي سيدا ترادد هدي عد وحكودو الآخر سيد جوجش هذا الدشيدة وحيكوه قامنيسا إناد ساحتid oo aad hurda la dhacdid oo halkaana waqti badan oo aad wax ku akhrisan lahayd kaaga khasaaro. Ha ku akhrin layr ama nal iftiinkiisu uu daciif yahay. Marka aad layr iftiinkiisu uu daciif yahay aad wax ku akhrisid run ahaantii waxay kugu sababaysaa in indhuhu ay ku daalaan oo caajis aad ka qaadid kadibna aad buugaba isku laabtid. taasina waxay kugu hogaaminaysaa in waqtigaagii imtixaan diyaarinta ahaa ama wax akhriskaaga aad ugu talagashay oo halka dayac weyn uga yimaado. marka waxaan idin fiican inaad wax ku akhristaan layr iftiinkiisu uu si fiican u cad yahay oo aad waadix u ah si waqtigaagii wax akhris aad uga faa'iidaystid. marka aad hurdo dareentid istaag oo qolkaaga xogaa ku yar dhex socsoco adigoo buugaaga akhrisanaya sababtoo ah macnaha ku jira waxa weeye run ahaantii jirkaaga wuxuu helayaa firfircooni dheeraad ah iyo rabitaan sida in wax akhriskaaga aad hore u sii wadid oo hurdadii ku soo haysana ay halkaa sidaas uga baxdo. haddii aad qaabkana aad samaysid waxaad noqonaysaa runtii qof hadafkiisa akhris sii wada samee jimicsiyo yara fudud. macnaha ku jira waxa weeye marka aad xoogaa wax soo akhrisid ee aad dareentid inaad ku daashay wax akhriska bariga ka kac oo samee jimicsiyada yara fudud ee kala ah sida push upta iyo inaad gacmaha iyo lugaha aad kala bixbixisid si jirkaaga uu u noqdo mid furfuran oo culayskii badnaa ee caajisku watay meesha uu ka baxo. laakiin waxaa muhiim ah inaadan samayn jimicsiyo aad u badan oo culus oo jirkaaga oo dhan wada daalinaya oo haddii aad si daran u daashidna waxay ku nacsiinaysaa oo ay ku tusaysaa inaadan sii wadi karin cashir akhriskaaga. ka ilaali inaad indhahaaga in badan buugga ku haysid sababtoo ah run ahaantii indhuhu way ku daalayaan markaad in badan buugga ku haysid isla mar ahaantaa indhuhu ku daalaanna kadib maxaa dhacay kula tahay? waxaad dhacaysaa inaad dareentid oo aad iskula hadashid hadallada sida arwaxan ma sii akhrin karane indhahaba nuga xanuunay naga daawaxa mar kalaan akhrin doonaa oo halkaas aad wax akhriskaaga ku joojisid ama aad seextid ama aad wax kale ku khasaarisid waqtigaaga qurux badnaa ee aad wax akhriskaaga ugu talagashay. haddaba si aysan taas idinku dhicin waxaad samaysaan markaad 4 page ama 5 page ba aad akhrisid indhahaaga u ogolow inay eegaan hareerahaaga ama dhinacyadaada ama wax ku dhow inaad ku eegtid u ogolow indhahaaga weliba adigoo sii wata akhrinta cashirkaaga. haddaba qaabkee ugu habboon in loo fadhiisto markii wax la akhrinayo si wahsi iyo hurdo aysan ku helin?
isku day inaad u fadhiisatid si toosan sida sawirkan idinka muuqata. jirkaaguna ma noqon doono mid ku daala qaabkan, laakiin qaabkan sawirkan kale sida idinka muuqata ha u fadhiisanina. haddii aad si yara qalooc ah aad u fadhiisatid waxay kugu keenaysaa inaad markiiba ku daashid basi iyo caajis daranna uu ku fuulo, kadibna aad hamaasatid. kadib markaad hamaastidna waxaa ku xigta inaad seexatid, oo halkana ma waqti baa ku khasaaraya mise waqti baa ku seefgaroobaya? maya, waqti kuma seefgarasmaya ee keliya waqti ayaa halkaa kaaga khasaaraya. waxaa halkaas inoogu soo dhammaaday mawduuceennii maanta. marka haddii aad wax ka faa'iiday fideogan, la wadaag saaxiibkaaga ama walaalkaaga aad is leedahay wuu u baahan yahay talooyinkan aadka u muhiimka ah ee arday walba uu khuseeyo, ha noqdo mid iskuul, ha noqdo mid jaamacadeed, arday nooc walba uu yahay. runtii talooyinkan aadka muhiimka way anfacayaan. sidoo kalena waxaa jiray fideo hore aan sameeyey oo ardayda aan ugu talagalay oo ka hadlaya 5 wax oo arday kasta u muhiim ah inuusan samayn imtixaanka ka hor. marka fideoga aan idin sheegay wuxuu ku jiraa channelkeena, linkigiisana fideoga dhammaantiisa ayaan dhigayaa insha Allah. xaggaas ayaad ka helaysaan. marka ka faa'iidaysi wacan. haddii aad fideoga ka faa'iiday fadlan like sar. haddii aadan channelka aadan weli subscribe siin fadlan ha ilaawin subscribe sar oo gambalkeerna riix. marka wixii talo, tusaale iyo su'aal ahba xagga hoose komitiga inoogu soo qora insha Allah. ugu dambeyntii wanigoo idin leh, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.